waa ku salaamay saaxiib runtii maanta waxaan ku hayaa qiso aad iyo aad u cajiib ah gabadh baa waxay u timi nin culimo ah iyadoo moodaysa inuu ninkani saaxir yahay kaasi waxay ku tiri sheekh waxaan rabaa inaad ii sixirso ninkayga markaasuu ku yidhi arrinkaasi arrin filiig maahee diyaar ma tahay markaasi waxay ku tiri haa sheekhow diyaar baan ahay kadibna wuxuu ku yidhi waxaad samaysaa haddaad diyaar tahay waa inaad libaax aad ka soo jartaa tin runtii aad iyo aad bay u yaabtahay waxayna istiri xaggee baad libaax ka helaysaa balse way dhaqaajisoo duurka ayay gashay waxayna raadisay libaax ugu dambayn libaaxi way heshay sidoo kale waxay fahantay inaan libaaxa loo dhowaan karin ilaa uu dhergo maahaanay tacab badan kadibna waxay intisay libaaxii waxayna ku guulaysatay inay madaxa u salaaxdo saa daraaddeed markay madaxa u salaaxdayna ugu dambayn waxay ka goostay tintii loo diray si toosa ayay waxay u aaday sheekhii markaas ayay waxay ku tiri sheekhu waatan tintii isagoo yaaban oo isleeday arrinkaasi marka hore ma samayn karayso ayuu wuxuu ku jawaabay sidee baad ku heshay tintan markaas waxay uga sheekaysay tacabkii ay u martay tinta libaaxa markaas ayaa wuxuu ku yidhi sif addoontii allahi ninkaagu kama qalbi adka libaaxa intaad libaaxa u samaysay in la-eg u samey isagaa ku jeclaan doonee runtii dabcan waa xikmad aad iyo aad muhiima gabadhii waxaan kuula talinayaa adigoo aan ninkaaga dhibaatay inaad ninkaaga si qurux badan u hagaajisato qisadana halkaas ayaa keenaynaa intaan mid ka xiisa badan ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu